maalqabeenka caanka ah ee Elon Musk ayaa shaaca ka qaaday in lagu guulaystay mid ka mid ah mashruucyadii ugu waaweynaa ee ay samaysay shirkaddiisa Neuralink, taasi oo ah in maskaxda bini'aadamka lagu rakibo simikaadh wireless ah oo lagu maamulayo habka kala gudbinta dareemada ee jidhka bini'aadamka. kaadhkan oo ah mid koronto ku shaqaynaya ayaa loogu talagalay in ay isticmaalaan dadka laxaadka naafada ka ah, gaar ahaana kuwa uu ku dhaco xanuunka jeex-qalalka ama faaliga, waxaana loogu dhejinayaa qaybta sare ee maskaxda isaga oo si toosana ula falgalaya dareemaha qofka, isla markaasina soo gudbinaya amarrada ay maskaxdu siinayso jidhka intiisa kale, intaasi oo qofka u sahlaysa in ay si fudud dhambaallada ku helaan qaybaha ay ka midka yihiin lugaha iyo qaybaha hoose ee jidhka. waxaana aaladdan kaadhka ah loo sameeyey qaab la mid ah sameecadda, iyada oo leh qayb yar oo ku dhegaysa maskaxda qofka, isla markaasina ah ta sahlaysa in la helo farriimaha maskaxda. qofka aaladdan maskaxda loogu xidhaa waxa uu si fudud uga maamulayaa moobilkiisa gacanta isaga oo isku xidhaya fikirka maskaxdiisa iyo shaqada looga baahan yahay xubnaha kale ee doonaya in ay hawlgalaan. waxaa kale oo qofka u suuragelaysa in uu si wireless ah u dabayn karo aaladdan maskaxdiisa ku rakiban, maadaama oo ay leedh ama koronto ku shaqaynayso. Elon Musk ayaa sheegay in ay tani tahay mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee ay samaysay shirkaddiisa dhanka tiknoolajiyadda ee Neuralink, taasi oo ah shirkad aad u horumarsan. tijaabada hawshan oo soo taxnay sannadadii la soo dhaafay ayaa soo martay heerar kala duwan, iyada oo horena kaadhkani loogu sameeyey xayawaanno ay ka mid yihiin ey, doofaarre iyo daanyeero, kuwaasi oo qaarkood u dhinteen tijaabadii lagu sameeyey. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, ilaa 1500 oo xayawaankii lagu tijaabiyey ah ayaa u dhintay tijaabadii lagu sameeyey. Elon Musk ayaa shaaciyey in hataa hawshaasi guul buuxda laga gaadhay, isla markaasina si buuxda loogu guulaystay in qof bini'aadam ah lagu xidho aaladdan maskaxda la shaqaynaysa. sannadadii u dambeeyey waxaa sii kordhayay arrimaha la doonaya in lagu farageliyo ama wax lagaga beddelo qaybaha muhiimka ah ee jidhka bini'aadamka, iyada oo sannadkii 2022kiina dalka Maraykanka laga sameeyey tijaabo dhicisowday, taasi oo la doonayay in qof bini'aadam ah lagu tallaalo wadno doofaar.